waalidiinta ka soo qaybgalayaasha ardayda dhammaan martida sharafta leh soo dhawaada sharaf ayay noo tahay inaan naga soo qayb gashiin tartanka kadis Brothers and Sisters Union 2016 barnaamijka wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo kala duwan sida aayadaha quraanka ayaa ku furi doonaa waxaan u xigi doonaa khudbadaha ardayda waxa kaloo khudbad noo soo jeedi doona maamulaha Brothers and Sisters Union Maxamed Umar Nage sidoo kale waxa jiri doonta khudbado ay soo jeedi doonaan waalidiinta iyo labada arday oo tartamaya. My name is Mohammed Umar Naga. I'm the headmaster of Brothers and Sisters Union. We have founded Brothers and Sisters Union on 20 September 2015. Our basic aim is to help you teach adults and teenagers. After having seen a lot of problems with the students, so we dedicate ourselves to teach them unrelentingly and produce them a number of Somalis. So I hope that most Somali students will get a chance to be different vocational skills like engineers, doctors, pediatricians, philosophers. So that's our target. Thank you very much. علم سجلنا يا معلمين تسكوها وشيء برنامج كان أنا وكنت هذا نباهي مركي برنامج كان لبلابي عيال كي جاء يربي الله مركي وحنا كدري ما يا بقولتي وبقول إن برنامج كان يكون بولسين مركا البرنامج أنتان حنكر أي شيء سكول كان آدي في عيني هاي وهم بلينا يا سوق الأرض أيان آدي أدوهم بلينا يا عبد الرحمن عصير أنت كسر أبوك محنو إنسان وليبا أبوك روحان إذن شيء وركم ميديا هاي dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka Sweden ku cusub oo aan muddo badan joogin oo mar dhow wadankan yimid marka awkar soo dhawaad. Hello, my name is Abukar. I am from Somalia. I am a Somali. I am 11 years old. I go to Lake School in grade 4. My spare time I like to help my mother and playing football with my friends. My future I like to be police and football player. That's all my information. Thank you. You listen. awkar wadanka xataa ma joogo muddo 2 sano wuxuu joogaa sanadii wax yar taasi waxay daliil u tahay sida ay waalidkiisa ay ugu dadaaleen inuu wax barto. waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaano wadankeenu guul wacan cadowka waabto
nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku arkeena wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku arkeena living with family. I go to normal school and I'm grade 8. I like to study and try. My aim in my spare time I like to be listen and try whole Quran. I help my mother. In the future I like to be doctors because I need to help and care. I think we have chance today to try my exercise and try to be because our district hold in Somalia. In Somalia we don't have more hospital, more doctor. People are dying in this, so we thanks this dying our country Somalia. Thank you for listening and bye. Assalamu alaikum dhamaan marti sharafta waalidiinta macallimiinta culimada iyo dhalinyarada aniga ku hadlaya magaca ardayda magacaygu waa Sihaan waxaan ka hadlayaa waajibka ardayda arday walba wuxuu ku hadlaa inuu ku dadaalo waxbarashada si ay wadankiisa u dhis lahaay wadan walba oo dhisan waxaa dhisay dhalinyaradiisa oo wax soo baratay ugu dambeyn waxaa u mahadcelin lahay dhammaan marti sharafta oo kasoo qayb gashay xafladan qiimaha leh oo loo soo agaasimay waad mahadsantihiin أنكو آد أيوه أديها مثل أوفيش لبدي جروب وأنا أرضي آد وفر فرعون جروب كسوبر ستارز وحين نوقف بالعربة إسلامية ده حساب تأمين معك أنت كفير سنين كده وقريسين دقيقة واحد جروب كسدح دقيقة هستا لكن كفائدة سجى وح وقت يملها كفائدة سجى وح وقت يملها سؤال شكواد حسابته ركنا فولياندا حسابتنا حسابين أساس صعطة سدح لوجود فطير إبر دبع لحدة يكو جروب كواد أي أسكال سؤال لبعضنا وح أسكال جروب تفوق يونايتد جامبيونز سؤال شنو أفر لوجود فطير إبر دبع صدن يكو وعي 60 دقيقة waqtiga waa dhamaaday jawaabta la inkaga fadhiyaa labada group superstar magacaaga sheeg iyo groupka magacaygu waa Nawal Saasha jawaabteeda waxa waaye groupka socoto superstar 8.3 groupka oo ama group 8 سؤاشي أهاد ترى لقول نقطة إبر ربع اللحظة يكو سيدا يقول جوابين وامد صح جروب تقاه magacayga waa Faiso su'aasha baa isku dawacay groupka ka socda waa United Champions su'aashan jawaabteeda waxa waaye noolkama shugafaa ama eber dhibic 25 su'aasha
labaad ee tartanka oo ahayd 4 lagu dhuftay eber dhibic 31 oo ay lahaayeen gruupka United Champions sida ay u jawaabeen waa mid qalad ah. anigoo magacayga Abubakar Ibrahim Maxamed Cali oo ka socda gruupka Superstars su'aasha jawaabteeda isku day waxa waaye Edkoma Shugifira. su-aashii labaad u timid gruupka Superstars taasoo soo agmartay United Champions sida ay ugu jawaabeen waa mid sax ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوم مقعد أبو بكر إبراهيم محمد علي وكسعة دلالة برشاد برادرز أند سيسترز يونيون ومات نيها وخطبة كسرة سنة عربية. مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا أيها الحضورة الكرام. لدي كلمة صباح تتحدث عن العلم. الحياة مليئة بالعلوم التي أنتجها عقول البشر وقد ربت أيادي العلماء تكتب وتبحث في كتب الأولين فمنهم من يؤلف الكتب على ضوء ما سبقه ممن عرف ومنهم من يترجم علوم الإمبراطوريات الإغريقية والفارسية وغيرها والحضارات الغاربة. العلوم هي نباسل الحياة والنور الذي تستضيء به البشر وتعرف خلق خالقها سبحانه وتعالى وحقوق العباد وكيفية التعامل مع الأفراد المجتمعات سواء في الطرق الدينية والاقتصادية وتبادل المصالح أو في الطرق الإنسانية. عندما فقدت نفوس كثيرة من التعلق بالله أو فهمت الدين فهما غير صحيح أو فهمت بيزيد من التعصب الديني والتشديد والتضليل أرسلت الحملات تلح وحملات على المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها تطمع في خيرات المساكين والفلاحين وتحرق مزارعهم وتسرق خيراتهم. نعم إن العلم أمر ضروري فبدونه ترتع البشرة مهما الرياض ومثالب الشرك والبدع ولا تعرف الطريق إلى من خلقها وفطرها. هو أساس الرقي بالأمم وليس صحيحا أن نتخلى عن الدين الذي يؤدي إلى تدور فديننا الإسلام يحث على الناس على العلم والمعرفة. قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وموحدين للعبادة وحده لا شريك له وناصرين للدين وناشرين للخير. أرجو المعذرين هذه أخوتي المقدمين لافتتاح هذه المدينة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم على المزيد من طرح مفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أبوك آد يا أم حسن تهاي خطبتي سوحة لقيت بن سكري إن كوسا سنة علمي وحنا سوقات آيات القرآن إيوه فايديك العلم قليا مك علم هو مهم وأين كنت دلنا وأين أثرنا وين يران ملها أنا وحنا كوسا دويهنا معلم كتر صندلة برلانكا كنا لكن نوجه مع ستوكهولم مع عبد الغني وحين نوتا شرف وين إنه هل كان نقل سوقات قال ترتن كان في نالكا مع عبد الغني كسر دوا أنت معلم عبد الغني وكم هاي معلمين الصوماليين تجن جعلنا هرمك عروته فكرنا كلها إلى أساسه دلته وحبرشة Brothers and Sisters Union معلم سلوا مرة بعد مرتدى حرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا وأنا أمهد عليا معلمين إيه أساسيالك معهد كان قيمها بدن وحكى أمهد عليا دلنيرة يرير الدلاليس وحبرنايسا ووقت جوذا كفى أي سنايا وحان أمهد عليا والدين قرتي إن أفائديان عبورتو ذا ولد دلالي عبورت سيموس قبل وقاران وحان الله جزاكم الله خير. فنتي لوكل مدودو مهي محادي الله معلمين تهرتهمتي ومدين الصوماليات هل دبار نقل الشيقة
sayid maxamed cabdulla xasan inuu halgamaa soomaaliyeed ahay ingiriiskaa noo sheegay dadka soomaaliyeed ma garan markii geeridiisi 100 sano laga joogay joornaal ka soo baxa ingiriiska oo beejka koowaad looga soo daawacin sayid maxamed cabdulla xasan ma jirin maalintii 100 sano oo mootana soomaalida ee cad markaas ku marooga oo 100 sano mootay hadda sayid maxamed cabdulla xasan waxaa noo sheegay ingiriiska dadkeena fiican ummada kale ka faa'iideysto noo sheega runtii dadka Soomaaliyeed waa laga faa'iideystay wadanka Sweden waa wadan bulshada faa'iidooyin badan ugu talagalay qaasatan carruurta iyo waxbarashada qiimo heer sare geliya laakiin dadkeena Soomaaliyeed waaga hore jaaliyadaha iyo waxyaabaha ay sameeyaan ummad uun faa'iideyn jirin waa ka faa'iideysan jireen waxaan u mahad celinaynaa macallimiinta injineerada akhyaarta waxgaradka inay dadka u faa'iideeyaan waqtiga galiyay waxaan codsan lahaa barnaamijkaas Soomaaliya hal xoojiyo macallimiinta waxaan leeyahay runtii macallimiinta lamid ahaa magaalada Stockholm waxaa jiray group macallimiin Soomaaliyeed oo isu tagay waxay samaysteen meel ay uga caawiyaan dhalinyarada Soomaalida maadooyinka xisaabta iyo scientifica macallimiintaas hal arday gabar iyo wiil Soomaaliya oo jaamacadda Stockholm ka soo baxay oo aysan macallin u ahayn u soo faa'iideyn ma jirin maantay qof kasta oo wax bartay ee Soomaaliya ee Stockholm ku noolaay waalid u yihiin macallimiintii had iskuulay fureen iskuul ilaa xanaano ilaa fasalka 9aad ee Stockholm ka fureen waxaa dhigata 370 arday oo Soomaali kaliya salaada lagu tukada raashin xalaal ah lagu cunaa waxaa idin leeyahay waxaa tii rag iskuulka noogu furi lahaa Of this program today, we are talking about weather. I have 4 students with me that participating in the argumentation. Let me introduce their names: Sarah, Nafisa, and Abdulkader. Sarah, how many seasons are there in the year? 4. What are they? Summer, spring, autumn, and winter. Which season do you like best and why? I like summer best because you can bike, swim, and play football outside and get sunshine. That's what I will want to do, and thank you for listening. الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم runtii farxadda meesha taalo iyo maaragtay sida aan u kala maqanahay wax isla iyo wax la isku soo dhaweyn kara midna ma ahan runtii aniga ilmo ima dhigtaan laakiinse waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay intaan ilmo Soomaaliyeed oo maanta xisaab iyo English iyo Sweden ku tartamayo wax noo dhinay ilaa iyo 2000 laga soo bilaabo kelmadda Cabdiqani markaan daba kaco jaaliyadii ka soo bilowday 2000 Burleyga ilaa iyo maanta jaaliyada kaliya ama maaragtay ururka kaliya ee maanta waxbarasho soo bandhigay runtii waa wax aad looga qiiroodo aadna loogu ooyo waxaan jeclaan lahaa lookaalka weyn inay bandhigaan oo kaleeto aan loo kala harin laguna casumo waana taariikhda runtii waxay ku geli doontaa si lama filaan ah waxaan ugu fakari doonaa si aan caadi ahayn waana xusi doonaa taariikhdan oo kaleeto 100% waana soo dhaweynaynaa aad ayaa mahadsantihiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa ilaah baan u mahadcelinayaa halkaan suuqan keenay marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta ardada wax soo baray iyo waalidiintii ku dadaalay si ilmaha fursad u siiyay inay wax bartaan cilmigu waa muhim nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam طلبوا العلم ولو بالصين الصين بالله كده يعني وقت ياس بريء ده حمرك اللي جالس وهرب وطن كشين آدو وفوق يعني مركا مسافة طلبوا العلم ولو بالصين
marka kaleetood اطلب العلم طلب العلم من المهدي الى اللحد علمك ان لا برتو عنو markuu tilaabkaadna oo naas hawladiis shaqaayo laga soo bilaabo ilaa uu ka dhinto qofku inuu cilmi dalka laga rabaa marka cilmi aan laga markayso waa laga tiraa marka cilmigu wax weyn ayuu taraa bani aadanka isaga uu yahay hogaamiya markaad fiiriso caalamku wuxuu hor ugu kacay waa cilmiga meel cilmu ka jirin وروحنا كما جرو الله نحفظ أولاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحايدين هيا قبل كساب سنوي معانا حياتي أبوانا حدراوي مثال كيس حديه هيك قبيل رديسي سؤال سري عمري مركو هلي هنبدي حسوستين هلا يابلا مرهو هذا الكاسدا مدن هويا وحلوديكو لقينا الدنيا بلساني هذا قبل هيركي كجوجين كما استجرجو سودانت كمالين ولي والولايا بلساني يقمدن هذا اللي السودان وحكستو اللي هليكر هويا وحاتا هنبدي معاني مرناني مامين هويا وحاتا تيورتي نفتو إذن هبينكا إفولتي هويا وحاتا حتى كل مناس هاوشين هاوين هويا وحاتا تيبا هبلوغتي مركي هبكري دايين هوبي جيمكيو هردنكي دقالدا مركي دادكو لالك هذيقا مهاقيني هب انتا إسيسا هاوييغا إلا مرتي هويا هدادن جيرين قوتكا وناكسن هالكان سوما قارين هويا وحاتا تيها قبتيريسو خبرالي ويلالبا هاقاتين تجركودا مروا بوكاها كرانو هان كودا توسيسا الله هو الشرفي وحان كوها ديالا ما بهيلي كرايه هالكا أديو مونتا وهويغا جنادي هاري جنادي إيو هوسكي معانا ربي كوهي بيو وليغا هالكا جو بيهات كوهيدا نيسو أديغو أهلون معاديغو هوريسي هاقالي واحد هين واحد هيباتي قبطي أديغو همون قابو معاد هونا أورانيسي أناغو هم بينين معانكا هاقا بيليني هاقالي معادا مستيقاجا كوردوتي هابيني مو معان كوغو كهويا كوغوي هابينيمو maxaan kugu kala hooya kugu hooye waa inaad tiraa iyo maxaa hadal xuni diiday anigoo hadaq baraada oo hubin waxaan sheegay maxaad hadalka itoosida igu hogamaysay halkan laguma soo koobi karo hooya sameheede hal baan ka soo qaadayaa laba halmantiye hooyoy macaanay jannada eebba kugu hooye hooyoy macaanay jannada eebba kugu hooye halka lagugu dugiyo carrada haatan kugu dahan hobaan firdowsa qabrigu hooya ku noqoye halka eebbe moye maraan hega kala joogin hooskii allo kugu harshaan huu leeyahay ahungoobin manti carshiga laysku harinayo Hi, my name is Mohammed. I am 11 years old. I come from Somalia. I'm Somali. I live in Bolenge with my family. I go to Sulaim School. I am grade 5. In my spare time, I like to play football and read the Holy Quran. In the future, I like to be a doctor or an engineer. That is my all information. مرحبا اسمي عبد الرحمن أنا أحد أعضاء البراذرز يونيون Brothers and Sisters Union. طبعا أنا أدرس في مادة الرياضيات. سعيد جدا إنه الطلاب دائما متفوقين وإن شاء الله في المستقبل
راح يكون افضل وافضل. وشكرا. Hej, mitt namn är Sayal Adan och jag är en av ledarna på Brothers and Sisters Union. Det gläder mig verkligen att se mina systrar och bröder lyckas med utbildning när det gäller utbildningen och jag hoppas att denna framgång fortsätter. Tack för mig. السلام عليكم مقعيق وعبد القادر waxaa ka mid ahaa dalada waxbarashada Brothers and Sisters Union waa ku faraxsanahay inaan ka mid ahaado waxaan dhigaa xisaabta waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan wax fiican u qaban ardada Soomaaliyeed waxaa jirta arday badan oo u baahan caawimaad waxaan rajaynaynaa in aan sameeyno horumar aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waa ku faanaa inaan ka mid ahay dalada waxbarashada Brothers and Sisters Union. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واسم إساق وحا كميد أي معلمين توحكا دكتور جروب Brothers and Sisters Union وحا أرديدا كعاوية مادة حسابته هي سويدشكا عاد يادن حقوق فرحسناي جروب كان يهور مركي أرديدا قارسيسي ولكم أسنتي بسم الله مقعي ومصلح عمر دقن مقالة بورلانيا وحا كميد أي معلمين توحكا دكتور Brothers and Sisters Union waxaan ku faraxsanahay in amaanta kasoo ku casuulno waalidiin iyo ardayba xaflad aan ku xirayno tartan aqooneed kaasoo oo laba koox dhexmarayay oo ka mid ah ardayda waxaan aad ugu faraxsanahay in macnaha naqato daladii ugu horeysa macnaha hogaaminaysa dhalinyaro iyo waalidiinba oo macnaha magaaladan ka hirgashay haddana horumar xoog leh kasoo hoyday wixii ay ku dhaqaaqday taasoo keentay caawinaad aan ka helno waalidiinta ardaydii iyo dadkii fikradaha isku geystay oo marnaba aan ka harin fikirkooda ku mideysnaayeen haddana waxaan rajaynaynaa in aan meeshaan kasii anba qaadno intaas iyo in la midnana intaas in ka badanna aan kusii kordhino annagoo la kaashahayno bulshadeena Soomaaliyeed iyo bulshada aan la degannahay